madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jiray socdaalkiisa nabad iyo dib u heshiisiin oo ku maray gobolada dalka ayaa gaaray magaalada Balanballe ee gobolka Galgaduud waxaana ku soo dhaweeyay boqolaal shacab oo saaki 6 aroornimo isugu soo banbaxay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana socdaalkiisa ku wehelinaya xildhibaano ka tirsan labada aqal wasiirro taliyaal ciidan iyo mas'uuliyiin kale gudoomiyaha degmada Balanballe Jaamac Xeraale ayaa ugu horreyn ku soo dhaweeyay magaalada Balanballe madaxweynaha iyo mudanayaal waxaa weeye maanta waxaan nasiib u yeelanay degmadan Balanballe oo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne maxamed siyaad cid u dhaxaysa maanta nasiib waxaan u yeelanay hadduu noo yimid madaxweynaha qaranka madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaaf ayaa madaxweynaha u sheegay in Balanballe ay tahay degmo fac weyn dawladana looga baahan yahay in bulshada ay ka helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen dawladda shacabkii Balanballe shacabkii oo ku jecel oo dariiqyada taagan oo meel walba kugu soo dhaweynayay magaalo kasta ku soo dhawaa waan leenahay madaxweynaha degmada Balanballe oo ka tirsan maamulka Galmudug gaar ahaan gobol Galguduud marka dad badan oo shacab oo ilaa saaki taagnaa joogo saawgeed waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo oo ilaa baan ku dhaarshay badulka eega soo qurxoon yahay sidoo eegi wax laga taga maaha wax laga maqaan karo maaha Balanballe calaamado badan bay leedahay magacyo badan bay leedahay annaguna sida ugu dhaqsaha badan baan madaxweynaha annagoo la kaashanayna isla ballanqaad badan buu noo qaadi doonaaye wax ka qaban doonaa Balanballe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada Balanballe u sheegay haddii nabadda ay ka shaqeeyaan ay dawladdu ku dhiiranayso in ay adeegii ay u baahnaayeen bulshada ay ka helaan nabaddan waxay noo horseeyaysaa dib u heshiisiin waxay noo horseeyaysaa sida madaxweynaha uu sheegay inaan ceelal halka keenno inaan adeegii aad u baahnayd inaan keenno caafimaadkii aan halkan keenno waxbarashadii aan halkan keenno wax kasta oo lagu horumarin karo communitygan ama dadweynahan intaasi kadib ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay socdaalkiisa nabadda ku soo mareen degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud iyadoona qaybaha kala duwan ee Xeraale ay sacab iyo caleemo qoyan ku soo dhaweeyeen madaxweynaha gudoomiyaha degmada Xeraale Bashiir Daahir Yuusuf ayaa ku soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha magaalada Xeraale aan soo dhaweyno aan ku faraxno madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaan leeyahay soo dhawaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay bulshada Xeraale inay soo dhaweeyaan walaalahooda ka maqan dib u heshiisiintana ay qaataan waxaan kala shaqeynaynaa annagu wixii aad doonaysaan waxaan wadnaa nabad waxaan wadnaa dib u heshiisiin waxayna ka muuqda inaad jeceshihiin midnimo laakiin hal kaliya naga hartay bes idinku inaad isu roonaataan sidaas darteed hadda aan bilaawno dib u heshiisiintaan bilaawno dadka walaalaheenna oo maqanna aan keenno madaxweyne Farmaajo oo socdaalkiisa sii watay ayaa ugu dambeyn soo gaaray magaalada Cabudwaq oo ay ku sugayeen kumanaan shacab ah kuwaasoo ku labisnaa calanka buluuga waxaana dhalinyarada qaarkood jirkooda ay ku sawireen calanka gudoomiyaha degmada Cabudwaq Mahad Umar Cilmi ayaa sheegay in madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ku soo dhaweynayaan magaalada Cabudwaq Maxamed Xaashi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa madaxweyne Farmaajo u sheegay in Cabudwaq ay tahay magaalada ugu shacabka badan gobolada dhexe dawladana looga baahan yahay in bulshada ay ka helaan xuquuqdii ay u baahnayd ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo boqolaal dadweynaha reer Cabudwaq kula hadlayay barxadda roobdaay ayaa sheegay in dib u heshiisiintu ay ka bilaabatay magaalada Cabudwaq waxaan u soconaa oo socdaalkeenu yahay nabadeyn iyo dib u heshiisiin oo calaamad u tahay Galmudug iyo Al-Sunna oo aan ka bilaabnay dib u heshiisiintooda waxaan doonaynaa dib u heshiisiinta inaan halkan ka bilaabno oo magaaladan la kala degan yahay ay midowdo oo dadka Soomaaliyeed oo magaalada degan oo waalaha ah ay midoobaan oo ay nidaam samaystaan oo sharciga ay hoggaansamaan waxaan doonaynaa inaad gacan ugu siisaan inaad caawisaan waxaan idiin sheegaya haddaad nabad keentaan wax walba oo horumara waa suurtagal inaad ogolaataan inaad walaalowdaan inaad ogolaataan inaad wada noolaataan haddaydan ogolaan inaad wada noolaataan cid idin imaanaysa ma laha ayala Cabdullaahi Jaamac Honkable TV Cabudwaq